internetka waa shay maanta ay dunidu boqolkiiba 99 ku xidhan tahay, taasoo haddii la waayo sakimay adeegyadu jaha wareerayso. wuxuu internetku fududeeyay nolosha bini'aadamka kaasoo ka qayb qaata nolol maalmeedkooda. maanta waxaa soo bandhigay xaqiiqooyin ku saabsan internetka. ku soo dhawaada. waxaa jira in ka badan 47 bilyan oo bog internet ah, kuwaasoo ku yaala webka daabacan. tirada boggan ayaa si joogto ah u sii kordhaya maalin ka dambeysa. kala bar dadka isticmaala internetku ayaa waxay ku nool yihiin qaaradda Aasiya. China ayaa leh xeryo lagu daaweeyo dadka ku waxyeelooba internetka. in ka badan 300 kun oo shabakadood ayaa la jabsadaa maalin kasta. in ka badan 10 kun oo domains oo ku dhammaada .com ayaa la sii daayaa maalin kasta. boqortooyada Ingiriiska waxaa ka jira in ka badan 9 bilyan oo qof oo aan isticmaalin internetka xitaa noloshooda. guriga Bill Gates waxaa loogu talagalay isticmaalka Mac oo kaliya. Amazon waxay iibisay buugaagta PDF-ka in ka badan buugaagta warqadaha ah. qiyaastii 20% fiidiyowda YouTube waxay isticmaalaan muusikada. Google Earth qayb ahaan waxaa laga maalgeliyay hay'adda mukhaabaraadka Mareykanka ee CIA-da. dadka isticmaala internetka adduunyada oo dhan oo adduunyada kala bar waxay ku hadlaan luqadda Ingiriiska. qiyaastii 60 milyan oo hees ayaa lagu iibiyaa iTunes maalin kasta. mustaqbalka dhow 70% shaqooyinka adduunka wuxuu ku xidhnaan doonaa internet. wargeysyada ama TV-yada waxay u baahan yihiin ugu yaraan dhowr iyo 10 sano si ay u helaan 50 bilyan oo ku xidhan, laakiin internetku wuxuu u baahan yahay ugu badnaan 4 sano si ay kugu xidhnaadaan malaayiin qof. domainkii ugu horreeyay lagu isticmaalo internetka si loo isticmaalo wuxuu ahaa website-ka symbolicus.com. qiimaha ugu qaalisan ee eBay xilliga iibiyay wuxuu ahaa diyaarad lagu iibiyay $4.9 milyan. eBay iyo Amazon 70% waxay ka dhigan yihiin suuqyada ganacsiga caalamiga ah. maanta intaas ayuu soo bandhigay. haddii fiidiyowga ka cajibiyo fadlan like saar, kanaalkana subscribe ku qabo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.